daawada kalsoonida waxa weeyaan waa inaad aamintaa kartida awoodda khibradda iyo xirfadaha oo ilaah aad adigu leedahay ee ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa go'aanka aad qaadatay inuu sax yahay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa hadafka aad u socotaa inaad gaari karto oo xaqiijin karto waa inaad aamintaa dawada qodobkan wuxuu tilmaamayaa haddii aad rabto kalsooni inaad naftaada ku abuurto waa in laga hela inaad aaminto marka ugu horeyso waxaan aad adigu leedahay ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa muuqaalku ilaahay ku siiyay aad leedahay waa inaad aamintaa oo raali ku ahaataa waa inaad raali ku ahaato oo aamintaa maskaxdu ilaahay ku siiyay awoodaha qarsoon ee runtii aadka u fara badan ee ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa ahdaafta aad dejistay inaad gaari karto oo xaqiijin karto waa inaad aamintaa go'aamada qaadata inay sax yihiin oo ka noqon haddaba daawada qodobka markaanu tilmaamna haddaba kalsoonida iyo waxa uu yahay waxa muhiim ah inaan ogaano kalsoonida muhiimadda leedahay waa maxay uga baahanay kalsooni inaan helno daawada kalsooni marka aad hesho waxa ugu horeeyay helaysaa waa maxay waxay ku gaarsiinaysaa hadafkaaga iyo guusha ku gaarsiinaysaa haddii aanad kalsooni naftaada ku qabin meel u dhaqaaqi maysid bal marka soo istiraado wax qabo marka soo istiraado hadafkaaga xaqiiqi maxaa imanaya kalsooni darra imanaysa dib baad uga soo noqonaysa marka waxa ugu muhiimsan ee kalsoonidu keenta waa maxay inaad gaadho ahdaaftii aad naftaada u dejisay daawada muhiimadda kale ay leedahay inaad runtii kalsooni naftaada ku abuurtaa waxa weeyaan marka aad kalsooni naftaada ku abuurto oo naftaada isku kalsoon tahay waxa imanaya runtii saacada imanaysa raaxa dareemaysa awood baad dareemaysa oo sideed u dareemaysa waxaad dareemaysaa tusaale ahaan marka aad wax qabsato ee meel aad gaadho naftaada way ku farxaysaa waa haddii aad kalsooni isku qabto haddii kalsooni isku qabin maxaa imanaya waxa imanaya dadka inaad eegto maxay ka sheegayaan haddii dadku markaa ay yiraahdaan wax fiican baad qabateena naftaadu markaas ku raaxaysanaysaa haddii kale ku raaxaysan mayso marka meeshii maxaa yimi waxa imi wax qabadkaaga iyo raaxadii aad ku raaxaysan lahayd maxaad ku salaynaysaa dadku waxa ay ka leeyihiin marka soo eegto dadku waxay ku leeyihiin iyo dadku waxay ka sheegayaan iyo dadku fikrad ay ka qabaan markastoo taad awood saartana waa markasta oo kalsooni darro ay kugu dhacayso bal kalsoonida waxa ugu muhiimsan laga rabo waa maxay inaanad eegin dadku waxay ka leeyihiin siday dadku ku arkaan inaanad naftaada u arag haddii dadku ku arkaan inaad maskax gaaban tahay oo adiguna naftaada sida u aragto markaas ay kalsoonida ka lumaysaa haddii aad naftaada u aragto inaad qurux badan tahay oo kalsoonida aad leedahay maxay imanaya inaad runtii aad nafta sacaadiyo raaxaha dareento laakiin marka aad dareento dadku waxay ka sheegayaan inay muhiim tahay oo markay dadku ku yiraahdaan waad qurux badan tahay ama ma qurux badnid had reegooda qaadanayso maxay imanaya waxa imanaya inaad markaas walaacda imanaya markaas inaad ka warwarto dadku waxa ay ku leeyihiin hadii kelmad yar dadku kugu yiraahdaan sidaas ma tihid naftaadu way warwaraysaa marka maxay kalsoonidu keentaa kalsoonidu waxay keentaa qofku inuu runtii dago naftiisu ay degto raaxahu halay keensanaysaa oo eegin dadku waxa ay ka sheegayaan iyo waxa ay ka leeyihiin daabay kalsooni hadaa isku qabto waxa imanaya go'aamadaad qaadanaysaa mawaaqifta aad istaagaysaa inay mid noqdaan wax noqonaysa qof markuu go'aan qaato aan kana noqon sababtu waad ku kalsoon tahay kalsooni baad go'aankaaga ku qabtaa inaad saxsan tahay baad soo aragtaa laakiin markaad isku kalsoonaan maxay imanaya inaad runtii go'aanka ka noqoto marba go'aan ka noqoto laba noqoto daawada marka aad isku kalsoon tahay maxay imanaya fikirkaaga inaad faafin karto ra'yigaaga inaad sheegi karto ra'yigaaga inaad cabiri karto ayaa imanaya haddii aan isku kalsoonaan maxay imanaya ra'yigaaga inaad ka sheekado oo istirada malaha waa la diidi malaha dadku waxay roondana ra'y fiican maaha ayaa imanaya daawada marka isku kalsoon tahay waxa imanaya ummadda inaad u xujeedin karto ummadda inaad la hadli karto adoo isku kalsoon laakiin se haddaad kalsooni qaban maxaa imanaya hal kelmad inaanad jeedin karin oo isku dhaxayado ayaa imanaysa daawada markaad kalsooni isku qabto waxa imanaya naftaada inaad ixtiraamto markaad naftaada ixtiraamto maxaa imanaya dadku inay ku ixtiraamaan laakiin se haddii aanad kalsooni isku qabin maxaa imanaya naftaada inaanad isku ixtiraamin taasi maxay keensanaysaa adigana inaan lagu ixtiraamin haddaba qodobkaasi waa qodobkii koowaad oo tilmaamaya
marka kalsoonida laga hadlaayo kalsoonida inay tahay qofku inuu aamino awoodaha qofku haysto awoodo badan baad haystaa awoodaha waanad aamintaa meel inaad gaari karto wax inaad noqon karto wax inaad keeni karto waa inaad aamintaa hadafkaaga inaad xaqiijin karto waa inaad aamintaa inaad maskax badan tahay maskaxdaada aad u sarreyso markaad waxa aaminto oonad eegin dadku waxay kaa leeyihiin iyo waxay kugu sheegayaan kalsooni baad helaysaa